بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل تشديدات الفاتحة. فاتحة الشدد كيدو 14 أفر يتبنوي. فاتحة وحي لدهي 14 شد bay leedahay. shidku waa xaraf. shidka mid kamid ah hadii laga tago salaadu ma ansaxayso way. ana faatixadu waa akhrinteedu waa rukni arkaanta salaada kamid ah way. bismillah fawqa lam. lamka ayaa la shidaya. allah lamka ku jira way. الرحمن فوق الراء. فصل الكهري كجوي. فصل شروط الفاتحة. فاتحة شروط يدو 10 تبنوي. فاتحة شروطه 10 تبنوي. الترتيب. فاتحة وإن لا ترتيبيه. ترتيب معنيه سوى حوية سيدا أي أقرنتها آيده هذا وإن لو أغريه وأن آيدنا آيد لغهر مرين سيدا هذا لو أغريه أي كتابك أقرنتها. الترتيب والموالاة حرير وهي inaan la kala goynin weeye bayna kalimaatiha. faatixada kalimaadkeeda waa inaan la kala goynin. kelimadan markaa sheegto kelimada kalena waa inaad raaciso. wa muraacaatu xuruufiha xuruufi lfaatixa. faatixada xuruufteedoo la ilaaliyo weeye. hal xaraf oo ka mida waa inuuna ka tegin oo una dhimin qofku wey. wa muraacaatu tashdiidaatiha. shidadkeeda oo la ilaaliyo weeye. shidadkeedii oo la ilaaliyo aan waxba laga tegin wey. wa allaa yaskuta waa inuusan aamusin qofku saktatan aamus dawiilatan dheer walaa qasiiratan aamus gaabanna waa inuusan aamusin. aamuskaas gaaban oo yaqsidu biha uu ula qasdayo qadca alqiraa'ati qirada inuu ku gooyo. yacni faatixada markaad aayaddan aqriso waa inaada iska aamusin oo labadii aayadood inaada kala goynin oo aamus dheer waa inaada u dhexaysiinin. aamus gaabanna waa inaada u dhexaysiinin oo aada doonaysa inaad qirada ku kala goyso. qirada haddaad kala goyso way buraysaa salaadu. wa qiraa'atu kulli aayaatiha. faatixada aayadaheedoo dhan qofku inuu aqriyo wey. waxba inuuna ka tegin waa aayadaheedii. wa minhaa aayadihii faatixada waxaa ka mid a albasmalatu. bismi illaahi araxmaan araxiim baa ka mid a. qofka marka tukanayo waa inuu faatixada aayadaheedoo dhan wada aqriyo. faatixada aayadaheedina maxaa ka mid a bismi illaahi araxmaan araxiim baa ka mid a. marka waa inuuna bisinka ka tegin. duu qofku bisinka ka tago aayad faatixadii ka mid a ayuu ka tegay. marka salaadiisii nusqaan baa gashay. marka ma ansaxayso. basmaladu ama bisinku waa suurad kastaoo faatixada yani qur-aanka ka mid a. waa aayad ka mid a bisinku ilaa suuratu tawba baran mooyaane suuradda la yidhahme. marka basmalada siraysi in la siraysto hoos loo akriyo iyo in kor loo akriyo labadaa qowlba ku jiro oo aimada ka sugnaaday. laakiin hadduu qofku kaba tago bilkuliyaba uu ka tago bisinkii
faatixadiisi naaqis weeye, aayad baa ka maqan, way buraysaa marka salaadii, ma ansaxaysa salaadii, leanna aayad buu ka tegay faatixadii ka mida. marxaban. axaadiidta ku soo arooray in faatixada la siray, bisinka la siraysto hoos loo aqriyo, aimada qaar baa qabsaday, imaamu axmed iyo abu xaniifa iyo saasay qabsadeen in hoos loo aqriyo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu aqrinayo alxamdu lilaahi buu ku bilaaban jiray. imaamu shaafici wuxuu leeyahay xadiidka macnihiisu ma aha faatixadoo hoos loo siraysta meehee, rasuulku alxamdu lilaahi buu ku bilaaban jiray, suuradda magaceedaa la yidhaha, macnaa faatixadu ku bilaaban jiray wey, iyadoo macalbisinkeedii wadato. maxaa suuratulxamdi baa asmaada suuradday ka mid tahay, suuratu xamdi baa la yidhaha, umulqur'aan baa la yidhaha, faatixatulkitaab baa la yidhaha, shaafiya la yidhahda, waa suurad magacyo badan, qur-aanka suuradda ugu fadli badan wey. marka alxamdu lilaahi buu akrin jiray, faatixaduu bilaabi jiray, macnahaasaa laga wadaa, bisinkuu ka tegi jiray maaha, iyo hoos u akrin jiray maaha. riwaayaad kaloo fara badan oo imaamu muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ay warinayaan, oo abu hurayre iyo umu salama iyo cabdullaahi ibnu cabaas iyo kulli laga warinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu bisinka kor u qaadi jiro o la jahri jiro. anas binu malik ba wuxuu leeyahay rasuulku markuu faatixada aqrinayo, nabiga qiradiisu waxay ahayd wuu jiidjiidi jiray, markaasuu miithaaliyey bismi illaahi araxmaani araxiim, kaana qiraa'atuhu maddan, wuu jiidi jiray nabigu, markaasuu bisinkii miisaali, saasuu macnaha u aqrin jiray nabigu. marka qofku waa inuu faatixada aayadaheeda oo dhan uu dhameeyo, bisinkuna wuxuu ka mid yahay faatixada aayadaheedii, basmaladii waa 7 aayadood faatixadu wey. wa qiraa'atu kulli aayaatiha, faatixada aayadaheedii oo dhan waa inuu aqriyo, wa minhaa waxaa ka mid ah albasmala, bismi illahi raxmaan raxiim baa ka mid ah. wa cadamu laxni, laxni waa inuusan la imaanin, laxni waa inuu iska ilaaliyo, laxnigii almukhili bilmacnaa, macnaha dhibayay. laxnigu 2 qaybood weeye, mid macnihii buu jebinayaa, midna waa laaxin buu qofku akriyey, laakiin laaxin oo macnaha jijibin yani burinaya ma aha. laxniga oo khatarta ee macnaha burinayo ama bedelayo, kelimada macnaheediiba bedelayo, kaas dee yani hadduu qofku ku aqriyo salaadiisi ma ansaxayso. laakiin laxni aan macnihii doorinaynin, bedelaynin, kaas xoogaa dhib male wey. maxaa ka mid a laxniga macnaha burinaya? ka dammi taa-i aw kasrihaa min ancamta, ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin. ancamtadaas yuu ta-dii goday oo ancamtu buu yidhi, ama wuu hoos dhabay oo ancamti buu yidhi, macnihii dhammaaba isbedelaya. waa laxni wey, laxni xun wey. oo siraada aladiina ancamta calayhim, kuwii aada u nicmaysay ilaahow wadadoodana mari wey. ancamtadaas markii taada la kordhabo waa khidaab, ilaahay o aada u nicmaysay. laakiin haddii taada la golo ancamtu anigu aan u nicmeeyey noqoni. ancamti haddaad tidhahdana te taas waaba kasii daro, waa kufri ay noqonaysaa, oo yani waa ta'niis, yani dhadig qofka yani muanaska yaa lahoos dhaba markii lala khidaabayo way. wa an takuuna xaalat alqiyaam, faatixadu waa in istaag lagu aqriyo fi lfardi, salaada faradkaa wey. wa an yusmica nafsahu, naftiisa waa inuu maqashiiyo alqira'a, qur-aanka faatixada aad aqrinaysa waa inaad ismaqashiiso adiga. wa anlaa yatakhallalahaa dikrun ajnabiyun, faatixada dhexdeeda waa inuuna dikri soo kala dhexgelin wey. faatixada markaad aqrinayso aayadaheeda waa inaad dikri kalin ama adkaar kale waa inaad kala dhexgelin wey. shuruuddaasay leedahay faatixadu. tashdiidaat lfaatixati, faatixada shidadkeedu 14 14 wey. bismi illaahi fowqa laami, laamka korkiisaa shidan. arraxmaani fowqa raa-i, ra-da korkeedaa la shiday, ra-daa shidan wey. arraxiimi fowqa ra-daa shidan. alxamdu lilah fowqa laami ljalaala. rabbi alcaalamiin fowqa albaa-i, ba-da korkeedaa shidan. arraxmaani fowqa raa-i baa shidan. arraxiimi fowqa ra-da korkeedaa shidan. maaliki yowmi ddiin fowqa daal, daalka korkiisaa shidan. maaliki yowmi ddiini wey.
iyaaka nacbudu fowqa alyaa ya-daa shidan iyaaka wey wa iyaaka nastaciin fowqa alyaa ya-daa shidan korkeeda wa iyaaka ihdina siraada almustaqiim fowqa saad saadka korkiisaa shidan siraada aladiina fowqa laami laamkaa la shidayaa ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin fowqa daadi iyo walaami daadka iyo laamka labadooda way shidan yihin wala daaliin marka waa 14 shid midna waa inuuna ka tegin qofku faslun yusanu rafcu lyadayni fi 4 mawaadica waxaa la sunneeyaa gacmaha in kor loo qaado 4 meelood salaada markii la tukanayo 4 goor baa gacmaha kor loo qaada waa sunno cinda takbiirati alixraam qofku markuu salaada xiranayo waa sunno inuu gacmaha kor u qaado allahu akbar buu leey wa cinda arukuuc markuu rukuucayana gacmaha kor buu u qaadayaa allahu akbar wa cinda alictidaal markuu rukuuca kasoo toosana gacmaha kor buu u qaadayaa samica allahu liman xamida markuu soo kaco gacmaha saasaa loo taagaa markii rukuuca laga soo kaco saan lama yidhaahdo ka qaar waxay saanay odhanayaan yani calacalahay saa kor ugu taagayaan maya gacmaha saasaa loo taagaya markii lasoo tooso samica allahu liman xamida wuu sii daynaya gacmaha rabbanaa laka alxamdu xamdan kasiira طayiba mubaarakan fiih markaasuu qofku dhacaya sujuudi wa cinda alqiyaami min atashahud alawal atixiyaadka hore markii laga soo istaagana kor in loo qaadaa sunaa waa markaad istaagto aad allahu akbar leedahay 4 meelood baa sunaa in gacmaha kor loo qaado faslun shuruudu sujuudi 7 sujuudda shuruudeedu 7 wey markaad sujuudaysa sujuuddaas aada wejiga dhigayso shuruuddaas waa inaad kamisho 7 shardi bay leedahay haddaada kamilin sujuuddu ma ansaxayso an yasjuda calaa 7 acdaa'in 7 xibnood qofku waa inuu ka sujuudo 7 xibnood waa inuu ka sujuudo markaasay sujuud noqonaysaa sujuud wey oo rasuulku muxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam umirtu an asjuda calaa 7 acdaa waxaa laygu amray inaan ka sujuudo 7 xibnood saasuu nabigu leeyahay 7 xibnood alwajh walyadayn labada gacmood warukbatayn labada low wa butuuni asaabici rijlayn 7 xibnood waa wejiga iyo labada gacmood labada low iyo lugaha farahooda farahaas baadinkooda wa butuunu asaabici rijlayn lugaha farahooda faraha baadinkooda inaad dhigto way dhinacaas cad inaad dhigta la doonayo 7 xibnood waa inaad dhulka dhigto qofka saliimka ee lug la-ayne gacan la-ayne kulligiis wada yani wada eg taamka ah 7 xibnood waa inuu dhulka dhigo lugaha markaad dhulka dhigayso farahooda lugaha farahooda ama faraha fiidooda waa inaad saa u dhigto ama waa inaad saa u yani saas ay lugtu noqoto faruhu xagga qiblada u jeesanayaan marka dhinaca hoose cad ayaa la dhigaya lama gedinayo oo dhinacan daahirka lama dhigayo haddaad sidaa tiraahdo dhankan aad kor aad u dhigto dhinacan garmadooda ee kore haddaad dhigto sujuuddu saa kuma ansaxayso haddaad kor u qaado markaad sujuudsan tahay ma lugihii kor isaga haysana sujuuddu ma ansaxayso halka xoogaa yani dhibaata ku timaada dadka yani ma kamilaan sujuudda acdaadeeda way waxaa arkaysa asiguu sujuudsan lugihiibuu kor isaga qaadaya ama mid buu kor u haynaya ama dhulkuu sidaa u seexinaya lugti baa saa isaga jiifto markuu fadhiistay fadhigii oo laba sujuud udhexeeyey oo haddana sujuudi labaad uu ku noqonayay lugti saasay isaga laaban tahay ma soo qaadin sujuudda kuma ansaxaysa saas kuma ansaxayso lugta hadduu dhigo laakiin hadduu gediyo oo dhinacan daahirka u sidaa u dhigana sujuudda saa kuma ansaxaysa wey waa inuu faraha dhinacooda baatinka hoosa waa inuu dhigo ama faraha fiidooda hore foodooda waa inuu sidaa u dhigo saa u toosiyo lugta wey 7 xibnood waa inuu qofka dhulka dhigo wey wejiga waa inuu si fiican dhulka u dhigo wejiga waa inuu si fiican dhulka u dhigo sida weliba yani ay sujuudi kusii kaamil noqonaysa markuu wejiga dhigo ilaa iyo sanka inuu sidaa isla dhigo wejiga iyo sanka
la doonaya. toddobada xibrood markuu dhulka dhiga wa an takuuna jabhatuhu makshuufa, wejigiisu waa inuu faydan yahay markuu sujuuday. taana mushkilay ku imaata dadka marka intooda badan fiir, ama qofku koofidiiba inta ugu jirto, ama waxbuu ku duubanayaa, madaxii ku xiranayaa, ase qaar cumada u xiranayaan, markaasuu leeyahy waan sujuudaya. laysa haadaa bisujuud, saas sujuud ma noqonayso. madaxaagu inuu wejigaagu inuu faydan yahay la doonaya, makshuuf waa inuu yahay, waa inuuna qarsoonayn wejigu markaad wejiga dhigaysa way. wa an takuuna jabhatuhu makshuufa, wejigiisu waa inuu yahay makshuuf, mid faydan waa inuu yahay. wataxaamulu bira'si, markaad wejiga dhulka dhigto wax yar waa inaad xoogaa miisaanka wax yar horay u saarto. wataxaamulu bira'si, wax yar baad rabaa culayska inaad yaro saarto, aad ma aha, xoog ma aha. wejiga xoog dhulka haugu xoojinin, hana ku xogin oo sidaa hau dhaqaajinin may. wejiga markaad dhulka dhigto wax yar miisaanka wax yar xoogaa culayska yaro saar. maxaa lagu miisaalinayaa, ku suuraynaya kutubtu, haddii wax jilicsan suuf camal wax jilicsan hadduu meesha ooli lahaa wax yaruu hoos u diisi lahaa. ka siday sujuudda u kaamil noqoto, yacni in saasuu wejiga saas loo hayo oo saas loo saaro maaha, in la dhigo oo xoogaa miisaantana la yar saaraa la doonaya. wataxaamulu bira'si, saas wey, waa inuuna dhaqdhaqaaqin, qof saa u dhaqdhaqaaqin. dadka qaar sujuudda wejiga dhulka dhigaan iyo saas u wadwadaya, may dhaqdhaqaaqa inaad dayso weye markaad saarta wejiga dhulka. wacadamu lhuwiyi ligayri sujuud, markaad soo sujuudayso dhacayso sujuud darteed inaad usoo hoobataan rabaa. waa taagneed soo maha marka hore, sujuud darteed inaad usoo hoobataan la doonaya. sujuud darteed haddaad wax kale usoo hoobato oo marka haddana aad sujuud kasii dhigato hore usii wado ma ansaxayso. qofku asagoo markuu rukuucii kasoo toosay samica allahu liman xamida u yihi, waxbaa inta ka maray ama waxbaa kusoo dhacay, markaasuu hoos u gabaday. markuu hoos u dhacay ayuu yihi kulli waa sujuudi lahayd, hore iskaga sii wado, ma ansaxayso taas. waa inuu usoo qasdaan rabaa, taagnidii uu taagnaa waxa uu usoo qasday sujuud inay tahay raasuho, wax kale waa inaad usoo hoobanin. wacadamu lhuwiyi, hoobasho waa inaan la helin ligayrihi gayri sujuud, waxaan sujuudahay waa inuuna usoo hoobanin way. wa anlaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatihi, waa inuuna ku sujuudin shay xarakadiisa la dhaqdhaqaaqay. wax markuu kacana raacayo, markuu soo fariisana la soo hoobanayo o dhaqdhaqaaqayo waa inaan ku sujuudin. ka darafi thawbihi, maradiisa oo kale way. maradan hadda inta kuu saaran ama madaxa kuu saaran ood qabto, yacni darafteedaas inaad ku sujuuddo lama ogolo, oo markaad kacaysana ku raacayso, marka kaletana wax dhulka iska yaalla la doonaya. marada haddii aad markaad ku haysato garabka ama aad madaxa kuu saaranto, markaad sujuudayso haddaad dhulka saa u dhigto oo markaa aad ku sujuuddo waa sax. laakiin ayadoo sidaas kuula socoto aad qabtay inaad darafteeda ku sujuuddo, waxaad kula soconayo kuma ansaxaysa sujuudda. wa anlaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatih, wa xarakadiisa la dhaqdhaqaaqayo waa inuuna ku sujuudin qofku, waa inuuna ku sujuudin. wairtifaacu asaafilihi calaa acaalihi, sujuudda shuruudeeda waxaa ka mid ah wairtifaacu asaafilihi, dhinaciisa hoose qofku waa inuu kor mariyo oo calaa acaalihi, dhinaca kore waa inuu ka kormayo, markaad sujuuddo dhinacaadii koreeyey ayaa hoos marayo, madaxii garbihii dhinacii kori jiray baa hoos marayo, dhinacii hoos jirayna simahaagii iyo baryihii iyo dhinacii hoos jirayna kor bay marayaan. taasaa la doonaya. wairtifaacu asaafilihi, dhinaciisi hoose waa inuu kor mariyo, calaa acaalihi, dhinaciisi kore waa inuu ka kor mariyo. maxaa la diidayaa oon sujuudda ku ansaxaynin? haddaad meel taag ahoo dalcadda saas kora baa tira waan ku sujuudi, ama adoo saa u siman, meel kulaba siman oo saan oo kale ah, oo kursigaan oo kaleeto camal oo saa u koraysaan ku sujuudi,
qaarkaadi hoos wuu hooseeyaa, madaxiina sidiisiibuu u koreeyaa, taa sujuud ma noqonaysa. inaad hoobataa la doonayaa oo dhinacaagii kore uu hoos maro, dhinacaagii hoosena uu kor maro, saasaa la doonaya markaa sujuudayso. waطma'niinatu xasil baa shardi ah fiihi fi sujuud, sujuudda waa in lagu xasilo. sujuudda markaad wejiga dhulka dhigto xibnahaagoo dhan waa inay dhaqdhaqaaqa daayaan biqadri subxaana allah intii laga yidhaahdo jirkaagoo dhan waa inuu wada istaago. haddaada xasilinba oo saad u dhaqdhaqaaqaysa haddana aad kusoo toosto sujuudda kuma ansaxaysa. saas duma'niina shardi ah, duma'niino xasil baa shardi ah inuu ku xasilo qofku. khaatima acdaau sujuudi, sujuudda xibnaheedu 7 7 weeye. aljabhatu wejigii, wa buduunu asaabici lkafayn, labada gacmood kafkooda, kafkaa baadinkooda, kafaynka labadan kaf baadinkooda, warukbataani labada low, wa buduunu asaabici rijlayn, lugaha farahooda, faraha baadinkooda. waa 7 xibnood. 7 xibnooda qofku waa inuu ka sujuudo. faslun tashdiidaatu tashahudi 21. ataxiyaadka shidadkiisu 21 kow iyo 20 way. ataxiyaadku wuxuu leeyahay 21 shid buu leeyahay. 5 fi akmali ataxiyaadka akmalkiisay ku jiraan. wa 16 fi aqalihi aqali tashahud. ataxiyaadku wuxuu leeyahay 21 shid, 5 waxay ku jiraan fi akmali, ataxiyaadka akmalkiisa inta lagu kamilay waay. 16 waa aqalihi aqali tashahud. 16 waa fi aqalihi aqali tashahud, 5 waa fi akmali. macnaha loola jeeda waa maxay? waxaa loola jeedaa ataxiyaadka inta ugu gaaban ee lagu gaabsan kara salaada ku ansaxayso. ataxiyaadkan la aqrinayo sunno iyo wuxuu isugu jiraa waajib. qaar haddii laga tago salaadu ay ansaxaysaa jirto, waa iska sunno lagu kamilayo. waxna waa inta aan laga tegi karin oo waajibka ah. inta ataxiyaadka ugu gaaban ee aan laga tegi karin ee salaada in la aqriyo ay waajibka tahay, haddaad ka tagtanayna salaadu ansaxaynin 16 shid buu leeyahy. intaas aqalu tashahud baa leeyahy. ataxiyaadka inta ugu yar waa inta ugu yar waa oo inta ugu yar ataxiyaadka waxa weeye ataxiyaatu lilahi salaamun calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaamun calayna wacalaa cibaadillaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah. aqal tashahud intaas 16 shid baa ku jirta. 16 shid baa ku jirta. haddii laga tago mid ka mid ah salaadu ma ansaxayso. 5 waxay ku jiraan inta lagu kamilay, inta lagu kamilay ku jiraan akmalka. marabin markaa tashdiidaatu tashahudi ataxiyaadka shidadkiisu 21. 5 fi akmali wa 16 fi aqali. ataxiyaatu cala taai walyaa. ataxiyaatu taadu way shidan tahay, ya-duna way shidan tahay. almubaarakaat shid male. alsalawaat cala saad, saadka korkiisaa shidan. alطayibaat cala taai walyaa, da-da iyo ya-daa shidan. lilaahi cala laami ljalaal, laamkaa shidan. assalaamu cala siin, siinka korkeedaa la shidayaa. calayka ayuha nabiyu cala alyaai wanuuni walyaa. ayuha ya-du way shidan tahay. annabiyu nuunka iyo ya-duna way shidan yihin. waraxmat ullaahi cala laami ljalaala, laam jalaalaha korkiisaa la shidaya. wabarakaatu assalaamu cala siini, siinka korkiisaa shidan. calaynaa wacalaa cibaadillaahi asaalixiin, calaynaa wacalaa cibaadillaahi calaa laami ljalaala shidan. alsaalixiina cala saadi, saadka korkiisaa shidan. ashhadu an laa ilaaha calaa laami alifin, laami alifin allaa, laami alifka waxa weye allaadaas wey. ashhadu an laa, laamkaa wuu shidan yahay. ashhadu, dadka qaar waxay yidhahdaan ashhadu
an laa ilaaha an laa shidkaa haddaa ka tagto xaraf baad ka tagto ashhadu an laa ilaaha ila an laa ilaha waa in la isku shido nuunka in la qariyo way laamka la shido wa an laa ilaha waa inaad dhihin an nuunka waa inaad soo bixin ashhadu an laa ilaaha marka laam alifkaa la shidayaa ila allahu calaa laami alifin wa laami ljalaala ila allahu ilaa laamku waa shidanya allahuna waa shiday laam jalaalaha shidan wa ashhadu anna cala nuuri nuunka korkiisaa shiday muxamadan rasuulullah calaa miimi muxamed miimkaa shidan muxamadin wa cala raa-i ra-duna waa shidantahay wacalaa laamiljalaaltina waa shidanya muxamadan rasuulullah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah miimku waa shidan yahay ra-du waa shidan tahay oo laba kordhow waa ka horeeyaa shidaya muxamadan soo maha rasuulullah waa lagu shidaya ra-du waa shidan tahay allahna laamjalaalaha waa shidan yahay marka 21 weeye 16 waa aqal tashahud baan nidhi waa inta aan laga tegi karin shanta akmalka oo ziyaadada oo sunnada ah baan kuu tirinaya qabso inta haddaad garato kuwa kale waa garanaysa الصلوات انت جاء حوي المباركات الصلوات الطيبات انت واسنو التحيات لله بالون التحيات لله بتكو غازن كرتا marka المباركات هي الصلوات هي الطيبات saddexdaaba waa ziyaado waa akmal waa sunno loo kaamiliyay sooma marka المباركات shid male الصلوات saadka shidan الطيباتنا taada iyo yaada shidan saddex shid meesha ma ku haysaa assalaamu calayka iyo assalaamu calayna labadaas siin assalaamuda ashaa laga tegi karaa labadaas siin asha ku jirto waa shidkaa laga deyn karaa waxaa la dhihi karaa salaamun calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu waa la labagodaya taweyn salaamun calayka nabadgelyo dushaada ahaato ayuha nabiyu salaamun calayna salaamun calayna marka assalaamu iyo assalaamu calayna labadaa shidna waa laga tegi karaa marka shantaasaa akmala asalawaatu saadkoo la shido adayibaatu daada iyo ya-da shidkooda assalaamu calayka iyo assalaamu calayna shantaas weeye fi akmali shantaa waa akmal waa sunno 16 kalena waa fi aqali tashahud weeyaho haddaad mid kamida ka tagto atixiyaadku ma ansaxayo salaadaadu ma ansaxaysa faslun tashdiidaatu aqali salaat salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam cala nabiy nabiga lagu saliyo 4 way salliga nabiga lagu salinayo salaada salligaas inta ugu yar shidkeedu 4 way allahumma salli waxa ugu gaaban allahumma salli ala muhammadin allahumma salli ala muhammadin lafdigaas ugu gaaban salliga afar shid buu leeyahay allahumma cala laami walmiim labadu waa shidan yihiin salli cala laami laamka korkiisa shidan cala muhammadina cala lmiimi baa shidan wa aqalu salaami marka atixiyaadka iyo salligu waa labay kala yihiin arkaanta salaada markii la tirinayo atixiyaadku waa rukni ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah buu ku egyahay atixiyaadku salliguna waa rukni gaar allahuma salli cala muhammadin waa rukni wey intaasa ugu gaaban shidka ku jirana waa afartaa wa aqalu salaami salaamta inta ugu yar assalaamu calaykum waay qofka salaamta uu salaada uga bixi kara waxaa ugu gaaban assalaamu calaykum hadduu yihaa bas inuu mid labaad ku celiyo iyo inuu dhinacyaha fiiriyo waa sunno taas waajib inta waajibka yahay uu salaada uga baxay waxaa weye assalaamu calaykum miimkaas hadduu margaaro miimu jamaca salaada uu ka baxaya qofka soo meelna fiirinayo marka salaamta waxaa ugu gaaban assalaamu calaykum shidkeeduna cala siini siinkaas shidan assalaamu siinta ku jirto faslun awqaatu salaati 5 salaada awqaadeedu waa 5 awal waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisu zawaalu shamsi qoraxdu inay zuusho waa can wasadi samaa qoraxdu markay halkaa dhalada ku taagan tahay waa inay ka zuusho oo dhinacan ay yani qoraxdu u dhacayso waa inay u badato mar alla markay geeskan kaa qabato qoraxdu oo dhinacan u badato duhurka awalkiisi baa la joogaa
waakhiruhu aakhirkiisuna masiiru dilli kulli shayin midlah shay kastii hooskiisu markay isla ekaadaanna gayra dilli listiwaa hoos hareedka markii laga gooyo waa duhur aakhirkii. duhurka awalkiisu muxuu ka bilaabanaya qoraxdu markay zuusho dhinacan u badato geeskan kaa qabato. aakhirka duhurkuna ilaa shay kasta iyo hooskiisa shay hooskiisa markaad shayga saa u istaajiso hooskiisa iyo hadday shaygu isla ekaadaan waa duhur aakhirkii. waa duhur aakhirkii gayra dilli listiwaa hoos hareedkaa laga goynaya. hoos hareedka dilli listiwaa maxaa la yidhaha qoraxdu markay halkaa qoraxdu markay inta jirto hoosku intuu u baxaya mar alle markay qoraxdu kor usoo kacdo hoosku soo gaabanaya marka hoos shayga hoostiisii buu soo gelay hoosku markay qorax halkaa dhanada ku taagan tahay hoos yar baa soo galay oo qofka hoostiisii ku baaba-ay markuu inta u baxa haddana qoraxdu markay inta u kacdo hooska intuu u baxaya soo ma intaa yare markii inta ku taagneed hoostaada ku jira wuu raacaya soo ma kaa dillul istiwa la yidhaha dillul istiwa intaa yarta waa laga goynay waa laga reebay. wa awalu waqti lcasri casrka waqtigiisa awalkiisu idaa saara dilli kulli shayin midlahu shay kasta iyo hooskiisu markay isla ekaadaan waa duhur aakhirkiise wazaada qaliilan wax yar uu ku daro waa casrka awalkiisa. wax yar inuu ku daro xataa shardi maaha. duhurka iyo casrka waqti uma dhexeeyo. aakhiru duhri awalulcasri baa la yidhaha. duhurka aakhirkiisu waa casrka awalkiisa. qof duhurka aakhirkiisa tukanayo iyo qof casrka awalkiisa tukanayo waa isla tukan karaa. labadii salaadoodoo adda-ah la isku xidhan kara kana duhur aakhirkiibuu tukanayaa kana casr awalkiibuu tukanaya. wax u dhexeeyo waqti oo la sheegi karo oo casr iyo duhur udhexeeya ma jiro. salaadan say u socoto tii kale unbaa geli waxba uma dhexeeyaan. wa aakhiruhu aakhiru casri casrka aakhirkiisuna cinda quruubi shams qoraxdu markay dhacdo casrka ilaa qoraxdu godka ka wada gelaysa waa la tukanaya. waqtu fadiila iyo waqtu likhtiyaar iyo waqtu jawaaz iyo waqtu karaaha iyo waqtu yani daruuro iyo yani waqtu yani wuu leeyahay laakiin fadiilada waa ina awalka ka tukato ilaa iyo shay kasta hooskiisa uu laba jeer kusoo labalaamayo waa ilaa waqtulikhtiyaarka way. haddii intaa lasii dhaafo waqtu jawaazi weeye. haddaad qoraxdii ay geeska dhigto oo salaadii 4 ragcadoodba aada wada tukanine markaad qaar tukataba qoraxdii way dhacday waqtigaas waa waqtu taxriim wey. waqtiga inaad salaada saa u daahayso maha. laakiin qofku hadduu waqtiga hal ragcada kasoo gaaro salaadu adawa qado maaha. masalan casirkii markuu hal ragcada tukaday qoraxda dhacday saddexdii kale qoraxda sii maqan buu tukaday adawey salaada qado maaha. hal ragcadaba haddaad kasoo gaarto waqtiga salaada aday kuu noqonaysa. salaadii subax markaad ragcad tukatay bay qoraxda soo baxday adawey salaada. laakiin hal ragcad waxaan dhannayn haddaad kasoo gaarto waqtiga markaad istaagtayba ragcadda adoon dhamaystir markaa faatixada akrisa markaa sii rukuucaysayba qoraxda way dhacday ragcadigooda salaada qado wey. salaadaas waqti waxba kaaan soo gaari waa inaad ragcad kaamila kasoo gaarto. hal ragcad oo kaamila hadda waqti kasoo gaarto salaadu adawey salaadu adawey. laakiin waqtigaa inaad gaarsiiso ma waa xaaraam wey. wa awal waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa awalkiisu quruubu shams qoraxda dhicitaankeeda way. qoraxda mar hadday dhacdo oo kaamil ay kulligeed u wada dhacdo maqribki waa la gaara waqtigiisa awalkiisa. wa aakhiruhu aakhirkiisuna quruubu shafaqi alaxmar maqribka aakhirkiisuna xawrka guduudan xawrka ama caadka ama xayska maqribka markii qoraxda dhacdo kadib guduudka halkaa ka muuqanaya intuu ka baaba-ayo muu maqribku jooga. guduudkaas markuu baaba-o maqrib waa tegay. salaada waqtigeeda ugu gaaban yahay waa maqribkaa la yidhaha. salaada waqtigeeda ugu gaaban yahay waa maqribka in yar waayo intuu wax caadka ka baaba-ayo wax yar. oo imaam shaafici baa waxaa laga warinaya laba qowl oo uu leeyahay qadiim iyo jadiid la yidhaahdo. jadiidku wuxuuba leeyahay salaada maqrib waqtigeeduba waa markay qoraxdu dhacdo oo qofku intuu isdiyaargaroobo uu dharkiisi labisto uu diyaargaroobo salaada u istaago oo uu aadaamo aqimo 5 ragcadood laga tukado 3 faradkayd iyo 2 sunno ah waqtiga maqribka intaas uu koogi waa baxayba. laakiin qowlka qadiimka ah ayaa wuxuu leeyahay ilaa ay ka baaba-ayo xawrkaas guduudkaas ilaa uu ka baaba-ayo maqrib waa la tukanaya. dadkii oo soomaalida horremiyiga waxay dhihi jireen maqrib waqtigiisa de waqtiga maqribka inuu gaaban yahay bay culamada ka maqleen inuu waqtiga maqrib wax yar waayo. 40 gaadiid ah
afartan riti oo gaadiid oo laisku xiriiriyo oo socoto intay ku dhaafto way maqribka markay qoraxda dhacdo hadday awr socoto afartan riti oo isku daba xigto ee ku marto afartankii riti baa ku maray maqrib waa tegay intaas wey qadarkiis marka uu gaaban yahay wey maqribka waqtigiisu waa yar yahay wey waa ilaa iyo uu ka baaba-ayo guduudkaas wa awal waqti lcishaa cishaha waqtigiisa awalkiisa quruubu shafaq ilaxmar caadkaas guduudan markuu baaba-o cishaa bilowday wa aakhiruhu cishaha aakhirkiisana duluucu lfajri saadiq fajarka saadiqa ah salaada subax ilaa laga gaaro cishii waa intaa waa la tukanaya cishaha waqtigiisu aad bu u dheeriya ilaa salaada fajarka uu ka dhasho oo aadaanka dambe intuu ka dhacayo fajarka saadiqa intaa waa la tukanaya fajarka saadiqa aw fajar waxaa la yidhahdo kaadib la yidhahda jiro fajru kaadib oo waa maxay salaadii inay dhalataad u malaynaysaa iftiin baa saa u baxayo markuu saa u baxo eedale salaadii baa dhalatay haddana mugdi baa gadaal ka imaanay wuu baaba-aya fajarkaas waxaa la yidhaha kaadib baa la yidhaha kaadib maxaa loogu magacaabay qofkii yidhaha salaadii way dhalatay been buu sheegaya ma dhalan weli kaadib baa la yidhaha midka saadiqa ah saadiq maxaa loo yirigan markuu iftiinka saas u baxo oo iftiinka aad aragto saa uu istaago iyo haddana saas u faafaya midigii bidix ba haddana ufaafaya kaas waa fajarka saadiqa aw fajarka saadiqa aw marka labada fajar dhexdooda xataa waa la tukan karaa cishaha midkaa kaadibka hore iyo kan saadiqa intaan la gaarin dhexdooda xataa waa la tukan karaa aadaankii hore hadduu dhaco laba aadaan bay salaada subax leedahay mogta fajar laba aadaan bay leedahay aadaanka hore markuu dhaco kadib waa tukan kartaa cishaha intaan la gaarin aadaanka dambe fajarka saadiqa aw intaan la gaarin waa tukan kartaa lakin asaa u daahaysa maaha waxaa ugu fadli badan laakin ilaa thuluthulail ilaa 4 saaco habeenimo ilaa 10ka xoogaa la daahiyo saasaa sunaa cishaha wa awal waqti subaxa waqtigiisa awalkiisu duluucu lfajri saadiq fajarka saadiqa dhalashadiisa uu ka bilaabanaya wa aakhiru aakhirkiisana duluucu shams qoraxdu soo bixideeda ka ogtay salaad subax waqtigeeda alashfaaqu halaatha shafaq midabka way shafaqa alashfaaqu midab shafaqu yani waa xawrka ama caadkan muuqanaya midabka muuqanaya halaathatu saddex way axmaru mid guduudan kaa maqribka ah way wa asfaru mid boora boore ah asfar yani guduudna maaha cadiinna maaha wax u dhexeeya way kareem kareem way asfar wa abyadu mid cad saddexdaa nooc way alaxmaru midka guduudan maqriban way walasfaru iyo walabyaduna cishaan labada midka asfarka ah oo boorboorka u eeg iyo midkan abyadka ee cad labadaa cisho wey ka guduudan unbaa maqrib wa yundabu waxaa la suneeyaa taakhiiru salaati lcishaa salaada cishaa in la daahiyo dib loo dhigo ilaa an yaqiiba shafaqu lasfaru walabyad ilaa uu maqribka marka midka ka guduudkiisu markuu baaba-o mid asfar aha ku xigo asfar ah asfarkaas haddana markuu baaba mid cad buu noqonayaa ilaa ay labadaaba ka baaba-aan in cishaa loo kaadiyaa sunna marka habeenka madowgiisi baa la gelaya marka madow bay noqonaysa marka faslun taxrumu salaatu alatii laysa lahaa sababun mutaqadimun walaa muqaarinun fi 5 awqaat taxrumu salaatu salaad baa xaaraan ah walaa tasixu mana ansaxayso allatii salaadaasoo laysa lahaa sababun sabab aan lahayn sababkaasoo mutaqadimun hormaray walaa muqaarinun sabab muqaarin oo la xiriirsadayna ma leh fii 5 awqaatin 5 waqti 5 waqti salaad aan sabab lahayn ma ansaxayso waa salaad sunna ah salaada faradka waa la tukan karaa salaad sunna ah oon sabab lahayn sabab ama sababkaa mid mutaqadima ha noqdo hormaray oo sabab baa keentay ama muqaarin ha noqdo sabab muqaarin oo la xiriirsaday labadaa midna ma leh waa sunno mudlaqa ah la yidhaha markaas sunno mudlaqa ah marka ma ansaxayso waa xaaraan mana guntamayso wey oo salaada sababka mutaqadimka a leh maxaa ka mid ah salaad yani faa-itoo kaa tagtay qadaa soo qadaynaysa nadar mid aad ku nadartay taxiyatu masjid masaajidkii baad soo gashay sunatul wudu baa ka mid a sunatu dawaaf baa ka mid a dawaafkii sunadiisi baa ka mid a aka waa sabab mutaqadim a waay sababka muqaarinka mid kalena dib la imaada la xiriirsadeen istisqa roob dalab aan roob doonaya kusuuf qoraxdii baa madoobaatay ama dayixii baa madoobaaday aka marka 5 waqti sunno iska mudlaqa oon sabab lahayn
lama tukan karo 5 waqti cinda duluuci shamsi qoraxdu markay soo baxdo xataa tartafica qadra rumxin ilaa ay qof joogii lasoo ekaato. rumxi waran baa la yidhaha, waran sidaa loo istaajiyey qof unbuu leegyahay waran, qof joogiis un intaa ila soo qoraxda ilaa xoogaa soo dheeraato salaad sunna lama tukan karo marka qorax soo baxdo. wa cinda alistiwaa qoraxdu markay halkaa ku taagan tahay dhalada markaa lama tukan karo fii gayri yowmi ljumcati maalinka jumcada mooyaane. maalinka jumcada la iska tukan karaa leanna dad fara badan baa masaajidka soo gelaya xataa tazuula ilaa ay qoraxdu zuusho duhurkii la gaaro. wa cinda alisfiraari isfiraarka salaada yani qoraxdu markay guduudato ay dhici rabtana lama tukanayo weeye, sunno lama tukan karo aan sabab lahayn xataa taqruba ilaa ay qoraxdi ka dhacdo. wa bacda salaati subxi salaada subax gadaasheedana lama tukanayo xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdi soo dhalato. wa bacda salaati alcasri salaada casr gadaasheedana lama tukanayo xataa taqruba qoraxdi ay ka dhacdo. macnaa 5 waqti weeye, 2 waqti salaada subax gadaasheedu ku jiraa. salaada subax markii la tukado ilaa ay qoraxdu kasoo baxdo, qoraxdu markay soo baxdo ilaa ay xoogaa soo dheeraato waa 2 waqti. salaada casr gadaasheedana 2 waqti baa ku jiro, qoraxdu markay gaabad ay guduudato salaada casr markii la tukado ilaa qoraxdu ay ka gaarayso waqtigaa ay guduudanayso, markay waqtigaa gaarto qoraxdu ilaa ay ka wada dhacdo, iyo markay ku taagantahay halka istiwaha markay halkaa ku taagantahay dalada. marka istiwaha markay qoraxdu halkaa ku taagan tahay dhalada ah maalinka jumcada ah waa la fasaxay. waqti kasto meel kastood joogto maalinka jumcada waa la goliya sunada waa la tukun karaa, leanna dad fara badan baa maalinka masaajidka soo gelayo ama tukanayo ama waqtigaas jumcadii waa loo gelayo. maalmaha kale maya. waxaa kaloo lasoo istidoonayaa fii xarami maka, xaramka makaad 5taa waqti hadda aanu sheegnay ilina salaada sunada ah lama tukan karaa sababta lahayn. xaramu maka waa la tukan karaa isaga hal 24 saac salaada waa lagu tukanaya xaramka. wuxuu rasuulku leh calayhi salaatu wasalaam yani reer bani cabdimanaafo ha u diidina xaramka qof soo galay oo ku tukanayo fii ayi saacatin saacad alla saacadu doono, waqtiguu doono qofku tukanayo. marka xaramu maka waa mutlaq. faslun saktaatu salaati 6 salaada aamuskeedu aamusyaha ku jiro 6 wey. yani sunno waxaa jiro salaada markaad markaad aamus baa ku jiro, aamus waa sunno. bayna takbiirati alixraami wa ducaai liftitaax qofku markuu salaada xirto yidhaahdo allahu akbar ducaa liftitaaxa intuuna bilaabin subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka ismuka watacaala jaduka walaa ilaha gayrik wajahtu wajhi aladii fadra samaawaati walard. ducaa liftitaax la yidhaha ducooyinkaas ducaa liftitaaxa la yidhaha markaad xirato ducaa liftitaaxan intaada bilaabin dhexdeeda allahu akbar markaad tiraahdo axir baa aamusa markaasaad bilaabaysa ducaa liftitaax baad bilaabaysa. wa bayna ducaai liftitaaxi iyo tacawud ducaa liftitaaxa markaad dhamaysana faatixada intaad bilaabin tacawudkaa ka horay acuudu billahi min ashaytaan rajim. marka ducada ducaa liftitaaxa iyo tacawudka dhexdoodana axir buu qofka aamusaya markaasu watacawudi wa bayna alfaatixati iyo watacawud acuudu billahi min ashaytaan rajim markuu yidha qofku faatixadii intuuna bilaabin wax yar buu aamusaya. wa bayna aakhiri lfaatixati iyo wa aamiin faatixada markuu dhamay qofku waladaliin aamiin aamus yar baa udhexeeya. qofka waxaa rabaa weliba aamiinta in lagu raaco imaamka, laakiin dadku ma sugi karaan. sida sunnada waxaa weeye markuu imaamku faatixada dhammeeyo waladaliin uu yidhaahdo oo uu neefsado aamiin markuu yidhahda in lagu daro la raaciyo. waxay rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam imaamku markuu yidhaahdo aamiin adinkuna aamiin la dhaha fa inahu man waafaqa qowluhu qowla almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min dembi. imaamku markuu aamiin yidhaahdo malaa'igta aamiin la dhahayso marka hadday aamiintaadu midda malaa'igta waafaqdo dembigaaga hore o dhan waa la dhaafaya.
laakiin haddaad kasii horumarto intuu imaamkiiba dhihin maba sugayaan qofka soo suura asoo wala daalin imaamku sii leeyahayba raba aamiin la siiyo ma in la sugo way taa mushkilo meelaha yani waxa in lagu raaco imaamka lala xiriirsado muqaaranadu markay sunnada noqonaysa way muqaarano inaad la xiriirsato imaamka aamiintaad kula xiriirsanaysa wa bayna aamiin iyo wasuura faatixada markii la dhameeyo aamiin qofku yidhahdo aamiintaas haddana markuu suurad bilaabayo suuradda kale ka dambayso aamiinta dhexdoodana aamus yar baa ku jiro wa bayna suurati warukuuc suuradda markuu dhameeyo iyo rukuucana wax yar aamusa udhexeeya saktaatu salaad baa la yidhaha salaada aamusyaalkeedaa la yidhaha faslun alarkaanu alatii talzamu fiiha dumaaninatu arbacatu arkaanta salaada oo inaad ku xasisho dumaanino ay waajib kugu tahay 4 weeye alrukuuc qofka waa inuu xasilo walictidaal samica allahu liman xamida waa inuu xasilo dhaqdhaqaaqa daaya wasujuud iyo waljuluusu bayna sajdateyn fadhiga labada sujuud udhexeeya 4taa rukni dumaanino in lagaa helo waayo markuu qofku rukuuca waa inuu ku xasilo ictidaalka samica allahu liman xamida inuu ku xasilaa la doonaya sujuudda qofku inuu ku xasilaa la doonaya dhaqdhaqaaqa u daayo fadhiga labada sujuudood udhexeeyana inuu ku xasilaa la doonaya dumaanino maxaa la yidhaha marka waxaanu soo marayna arkaanta salaadii markaan soo marayna addumaninatu baa waajiba waa in qofku uu ku xasilo dumaninadu waa maxay dumaninadu hiya sukuunun xasil weeye bacda xarakatin dhaqaaq bacdigiis bixaysu meel yastaqiru kullu cudwin maxalahu biqadri subxaana allah ti laga yidhahdo dumaanino waxaa la yidhahdaa sukuunun bacda xaraka oo qofku markuu rukuuca uu soo dhaqaaqay marka dhaqaaqaad soo dhaqaaqday markaad jilbaha qabsato waa inuu xasilo qofku bixaysu yastaqiru kullu cudwin maxalahu qadar ama inta uu ximin kasta meeshiisa ku sugnaanayo oo markaad jilbaha qabsato xibnahaagii way toosan yihiin caadisa u toosaan xibin kasta meeshiisa inuu ku istaagaa la rabaa ku xasilo qadar intee le bal xasilaysa dhaqdhaqaaqa daynaysaa biqadri subxaana allah subxaana allahi subxaana rabbiy alcadiim wabixamdihi wasubxaanaka allahuma wabixamdika allahuma kfir li adkaartaas lagu akriyo rukuuca iyo sujuudaha lagu akriyo inta ugu gaabana waajibka biqadri subxaana allah intii laga yidhahdo xibnahaagoo dhan waa inay dhaqdhaqaaqa daayaan markaasaa dumaanina lagaa helo haddii kale adoo dhaqdhaqaaqaya weli haddaad soo kacdo maaba xasilin ninkii saxaabiga ah nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu tukaday uu la hadlo uu yihi salli fa innaka lam tusalli kii un baad noqonaysa ormaada tukanina tuko dumaanina la doonay dumaanino saasaan rabaa salaadu walaalayaal waa camalka koobaad ee qofka la weydiinayo qiyaamaha awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaad buu nabigu ley calayhi salaatu wasalaam addoonka waxa lagu xisaabo camalkiisa waxa ugu horeeya waa salaada fa in wujida taama salaada ayadoo taama haddii la helo qubilat wasaa'iru camali salaadii waa la aqbalayaa camalkiisi kaleo dhanna waa la aqbalayaa wa in wujidad kayra taama salaadii oon taamahayn haddii la helo ruddad wasaa'iru camali salaadii waa ridina camalkiisa kaloo dhan horaa wuxuu kaloo nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiis kale ku leeyahay addoonku markuu salaada hagaajiyo si fiican ugu tukado addoonku hadduu kamilo salaadii rukuuceedii iyo khushuuceedii hadduu kamilo qaalat isalaatu waxay leedahay xafidaka allahu kamaa xafidtani allaha ku xifdiya saad ii xifdis hadduu qofku dayaco salaadii halleeyana qaalat isalaatu waxay leedahay dayacaka allahu kamaa dayactani allaha ku dayac saad ii dayac ku habaaraysaa salaada marka salaada aan ihtimaam siino cibaado ilaahay uu nagu waajibiyey ama naga doonayo ta ugu fadli badan wey afdalu cibaadati lbadan wey hiya silatu bayna alcabdi wa bayna rabbihi wey salaadu waa ilaahay iyo addoonka xiriirka u dhexeeya wey salaada waa in lagu dadaalo walal salaadeena waa inaan ka dhigno salaadii rasuulka uu tukanayay sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku leeyahay salluu kamaa ra-aytumunii usalli sida anoo u tukanay aada aragteen u tukada siduu nabigu u tukada haddaada u tukanin salaadaada waxba kama jiraan marka salaadeena aan ku noqono salaadeena aan hagaajino
kitaabkaa maxaa lagu magacaabay safiinatu salaad, salaada doonteedii wey, waa salaadii oo dhamaystiran baa saaran wey macnaheed. safiina maxaa lagu jeeda? waa doon sooma, salaadii wey, wata salaadii intay saaran tahay waxba lagama tegin min awaliha ilaa aakhiriha. inaad isku miisaantaa la doonaya kitaabka wuxuu qorayo oo aad markaa salaadii ku tukato sida sharcigu u tilmaamayo. sala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wala alihi.